السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناسان داوديال meel kasta oo nagala socotaan ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono wasiirka haweenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Anisa Xaaji Muumin oo hawlo shaqo aan u timid magaalada Nairobi aan halkan kula kulanay Aniso ku soo dhawo marka hore muqbahiya istiya mahadsantahay maxamed Aniso tan iyo 2014 waxaad haysay ama waxaad ahayd wasiiradda haweenka ee Puntland waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo marka hore maxay tahay wixii ku qabsoomay tan iyo markii xilkaas lagu dhiibay runtii wixii noo qabsoomay ka wasaarad ahaan aad bay u badan yihiin 3 sano ciyaar ma aha ka qof ahaan maadaama laygu soo tababaray dawlad maamuleed ama aasaaska iyo kobcinta dawladda iyo agabyadeeda lagu maamulayo dadkii runtii waxyaalihii noo qabsoomay haddii aan kala qaado si guud sanadkii ugu horeeyay horta waxaan xooga saarnay ama diiradda saarnay sidii aan ugu aasaasi lahayn wasaaradda siyaasado iyo qorshayaal ee markaa la shirtagto ay ku yeelato hiigsigeeda sanadaha soo socda waxaa ugu horeeyay siyaasadii gudniinka gabdhaha oo runtii madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu nala soo dhaweeyay nala taageeray oo saxiixnay bil kadibba actually few weeks dhowr usbuuc kadibba waa Maars 8 maalinta haweenweynaha adduunka baan soo bandhignay la saxiixay baahinay siyaasadii hadda 2 sano barbay maraysaa intii dhaqan gelinteeda lagu jiray waxa inta ii xigtay inaan sameeyay qorshe 5 sano ah oo lagu hagayo wasaaradda adeegyadeeda siday goboladii u gaari lahayd waxa kale oo markaa soo baxday ii muuqatay si qorshayaashii loo qabto ilaa wasaarad walba ama hay'ad dawladeed walba waa inay leedahay iyada qorshe u gaara ama siyaasadda noqdo ama qorshaha noqoto markaas ay u howlgali kartaa hawshii u taale iyada iyo adeegidii dadka waxaan ogaaday marka inaanay jirin siyaasad ku wajahan dhanka shaqaalaha oo xeer hoosaadka wasaaradeed ah iyo dhankii maamulka lacagaha iyo maaliyadaha labadaas siyaasadood baan iyadana diyaarinay oo ah human resource iyo financial management sidii loo maareyn lahaa lacagaha iyo dhaqaalaha iyo shaqaalihii sidii loo hagi lahaa dabcan wasaaradda shaqaale way jirtaa laakiin taanada waa xeer hoosaad waxaa intaa dheeraa aan u kurgalnay inaan ka sii shaqeyno siyaasad aan 2015 aanu balaarinay oo ahaa siyaasadda daryeelka caruurta dayacan iyo dib u eegis siyaasadii jinsiga aanu ku sameynay intaa kadib waxaa noo muuqatay runtii in la helo xarumo haweenka ku shaqaysan karaan 9 gobol bay haatan Puntland ka kooban tahay 4 xarumood baa isla sanadkii koobaad ee 2014 noo suura gashay inaan ka hirgelino magaalada Baran oo ah gobolka Sanaag magaalada Carmo oo ah gobolka Bari magaalada Boocame oo Sool ku taala iyo magaalada Xarfo oo iyadana Mudug ku taala afartaas xarumood waa xarumo aad u waaweyn waa meelaha haweenka iskugu iman karaan waa meelaha haweenka lagu tababari karo danahooda ku falanqeyn karaan ama iyagii xataa ay ku kobcin karaan markay calashaan noqoto xaqii dhaqaale tababar haday noqoto iskaashi haday noqoto isku imaansho haday noqoto wacyigelin ay kaga qayb qaadan karaan intaa hadii ay dhacday sanadkii labaad baan waxaan u gudagalnay marka haweenka danyarta ah haweenka qaadka gada haweenka xaasaska askartoo kale askarta u dhaxda haweenka markaa ama dhib qaba ama caruurtooda daryeelo ama caruurta dibad joogta maxaan ka yeelnaa dabcan dawladdaana mas'uuliyadda ay ka saaran tahay haddee siyaasad la'aanna iskama socon kartid qofka inuu qorshe iyo hiigsi leeyahay weeye sidii baan waxaan ku hirgelinay siyaasadii daryeelka caruurta dayacan alxamdulillah aad baan uga faraxsanahay runtii golaha wasiirada madaxweynaha inay nagu taageereen arrinkaas waayo aad bay muhiim noogu tahay caruurtii guryaha ku xareysnayd in la hagaajiyo la daryeelo laga ilaaliyo tacadiga barbaarintooda waxbarashadooda iyo quudkoodii loo helo laakiin kuwa banaanka joogan iyaga laftigooda la meeleeyo taa way noo suura gashay 2 siyaasadood oo kala marka noo suura gashay isla 2015 alxamdulillah ilaa 2016 kun aan soo wadnay oo ahaa haweenka maadaama ay yihiin lafdhabarta ummadda intaasna ay soo dadaalayeen ilaa iyo haatan qaasatan Puntland ay u taagan yihiin haweenka horumarkii sidee iyaga horta laftigoodu xagga miisaaniyad ahaan wax loogu aasaasaa siyaasad baanu taa ka sameynay weli maynaan geenin maxay ahayd golaha wasiirada
waa siyaasad loogu magac daray gender responsive budgeting waa siyaasadda calashaan iyaga ama himilada dhaqaale ee iyaga haweenka gaarka u ah oo markaa dowladda hadduu ilaahay yiraahdo ay maxay ahayti wax ka qaban doonto ama ha noqoto miisaaniyad gooni loogu dhigto ama in khayraadka soo baxa iyaga gooni wax loogu qoondeeyo waxaa kaloo noo suura gashay inaanu aasaasno tuul ama qorshe ama habqaabeed lagu midayn karo siyaasadda dowladda dhan isla markaana looga dan leeyahay in waxyaalo badan waxaa arkaysaa lagu leeyahay haweenkii kama qayb galaan shaqooyinka qaarkood ama ha noqoto dhankii maaliyadda ama ha noqoto dhankii caafimaadka laakiin waxaan ogaanay Puntland kaliya 70 ilaa 80% weeyaan gabdhihii wax baranayay markay soo qalin jibaan shaqadiisa ay uga qayb galaan in siyaasadihii calashaan iyadoo aysan oranayn haweenkii lama shaqaalayn karo ba haddana waxaa dhacda inay rag meesha u badan yihiin intaa marka la naaqusiyo haweenkii tiradooda shaqaynayay oo waxbarto kor loo qaado marka tuulkaasaan samaynay ama qorshahaasaan samaynay iyadana dardargelinteedaan wadnaa dabcan sanad cusub baan ku jirnaa waxaa kaloo jiray oo aad nasiib wanaag u ah inaanu aasaasnay xarun naafada loogu talagalay dadka curyaanka ah lagu daweeyo alxamdulilah isla markaana la ballaarin doono meelay ku tababartaan iyagii lagu kobciyo hadduu leerada laga aasaasi doono waxaa jira marka xarumo badan oo sida hadda mid gacanta laga jari doono kol dhow xarun weyn oo wasaaraddu ay leedahay xaruntii ugu horeysay oo lahaanaysa meel caruurta lagu hayo meel dadka lagu tababaro meel naafada ay imaan karto bay noqonaysaa may wasaaradda kiro kuma jirto actually waxay ka mid tahay wasaaraddeena wasaaradda ugu dhululka badan wasaaradaha Puntland ka jira dhul aanu leenahay hadda degannahay marka laakiin markaan ka guurno dhulka aan u guureyno waa dhul weyn labo wuxuu leeyahay meel gabdhihii ka shaqaynaya ama shaqaalihii wasaaradda caruurtooda keensan karaan xataa dowladda shaqaalaheeda ay keensan karaan oo meesha lagu hayn karo waxay kaloo leedahay meel u dhow oo iyadana ah xarun loogu talagalay oo rabno inaanu ku daafurno daryeelka ama maxay ahayd tabantaabinta iyo daweynta dadka dhibanayaasha ee tacadiga uu haleelay waayo taas haatan kama jirto Puntland laakiin dhulkaasoo la dhisay oo diyaar u ah ayaanu danaynaynaa haddii la yiraahdo inaanu halkaas ka aasaasno barnaamijkaas insha Allah waa tahay waxaad soo hadal qaaday in dadka tacadiga loo geysto ee lagu xadgudbo ayaamahan dambe waxaa jirtay arrin si weyn bulshada Soomaaliya dhexdeeda ay u hadalhayeen oo ku saabsan arrin ka dhacday Galdogob oo gabadh halkaas lagu kubsaday inkastoo ay laba gabdhood ahaayeen laakiin muuqaalkii la soo duubay uu hal gabadh muujinayay wasaaraddaadu jawaab noocay bay ka bixisay arrintaas oo ahayd mid xanuun badan wasaaradda jawaabta ugu horeysay ka bixisa waxay ahayd kow inaanu annagu tagnay gobolka Mudug oo booqanay gabadhina aan ku hubsanay meel isbitaal oo lagu daweeyo oo markaa la talin iyo loogu sameeyo dawooyinkii iyo tabantaaminta ay u baahnayd labo reerka iyaguna si gaar aan u ogeyn wasaaraddana mar walba markii arrimahaas oo kala dhacaan waxay iska saartaa xil in ay hore u dardargeliso adeegyadii loo baahnaa kiiskaasna waa kiis aad u weyn dabcan waa kiiskii ugu horreeyay Puntland ka dhaca ee markaas intii dambiilayaashii ay wixii duubeen falkii ay soo baahiyeen oo baraha bulshada ay soo dhigeen taasna waa mid diinta ka soo horjeeda maadaama kiiskaas ay hadda lagu guda jiro dabcan culummadan la kaashanay guddi baa loo saaray madaxweynuhu uu ka hadlay marka xeer ilaalinta waa ku jiraan culimada ku jirta insha Allah biidnillaahi kariim waxaana la marinayaa dambiilayaashaas sida xaqa waxa diintu ay ka qabto haddii ilaahay yiraahdo waa gartay tabinta dhacdadaas dad badan baa ka shaqeeyay warbaahintu qayb weyn bay ka qaadatay inay barnaamijkaas ay tabiyaan arrinta dhacdadaas gabadha ku dhacday laakiin Puntland waxaa jira warbaahinta qaybtood inay u sheegtay inaanay tabin arrin ku saabsan dhacdada Galdogob ka dhacday adigana wasaaradda haweenkaad maanta wasiir u tahay oo arrintan ay hoos imaanaysaa maxay tahay jawaabta ama waxa sababta u ah in dawladdu ay ku dhiirato inay tiraahdo wariyaashu ma baahan karaan dhacdo saas oo kale ah horta dawladda kolleyto halka wax haddii ayba dhacdayba hawarinay u tiri in wax horta laga hordhaco ma wanaagsana waxaa jira xukunkaasaan dhammaantaan sugaynaa dabcan waan ka hadalnay inagoo dhan anigaa ka hadlay wasiirka cadaaladda ka hadlay xeer ilaaliyaha ka hadlay madaxweynaha ka hadlay inaan waxaan aan xaal mastuur lagu dhameeyo sida sharciga lagu dhameeyo isla markaana dawladda ay mas'uuliyad buuxda ka qaadanayso in dambiilayaasha la mariyo
wixii markaas xukunkooda uu noqdo ta kale gabadha yarta ah keliya ma aha dembigan wax laga galay bulshadaa laga galay waana wax soo noqnoqon kara waana wax u baahan tusaale weyn in laga qaato taasaan culimmada u xil saarnay taasaan guddiga u xil saarnay dabcan xukunkii oo dhicin wax buunbuuninteedii waxba ma tarayso waayo qofkii markii isaga uu wariyaha isaga laftigiisa waa qof professional waxaa looga baahan yahay in mas-uuliyadda uu qaato wixii hubo oo saxa inuu baahiyo laakiin wuxuusan hubin hadduu baahiyo maxay ka macno tahay markaas qofka wariyaha sharafta goonida uu ku raadinayo ama uu rabo in lagu aamino maxay tahay waayo wariyuhu waa qofka muhiimka u ah baraha bulshada oo la rabo in wixii saxda ahaa loo soo wariyo ummaddii markaas aan wixii ka warqabin wixii xaqa ha la wariyo laakiin wixii markaas haddii laga hor dhaco dee wax mala awaalaan markaas sheegaynaa dabcan waa tahay waxaa jirta arrinta kufsigu waxay u muuqataa in muuqaalkani uu baahiyey inay tahay arrintani ama loo micnayn karaa inay tahay arrin si weyn uga jirta deegaanada soomaalida gaar ahaana puntland gaar ahaana xeryaha dadka qaxootiga ay degan yihiin oo kale ama bulshada dhexdeeda oo kale wacyi noocaya bayna siinaysaa marka oo aad uga tusaale qaadanaysaan dhacdadii galdogob ka dhacday idinkoo qiyaasaya heerka kufsiga ama ay jiraan telekoobka aad haysaan uu yahay mid soo taraya horta mid isa soo taraya ma aha kufsiyada kiisaska waayo innaga waan ka warqabnaa bishiiba 2 jeer ayaanu kulan qabanaa oo ay hay-adahaan la kaashanayno wasaaradaha ay qusaysaan la kaashanayno sida wasaaradda cadaaladda xeer ilaalinta community police jira ama askarta bulshada oo kale la shaqaysa marka aan ka fariisanayna waxaan ka hadalnaa kow imase kufsi baa dhacay maxaa laga qabtay maxaan laga qabanin maxaa hadda taagan oo laga qabanayaa marka dabcan kufsigaas uu dhacay dhowr kufsi oo kaleeto hadda garoway ka dhaceen gabar yar mid ay ku dhimatay iyo mid kaleeto oo iyadana maxay ahayd xaal mastuur lagu dhameeyey innaga marka ka dowlad ahaan waxa aan ognahoon ka warqabno oo reerka ay toos noogu yimaadaan sida cadaaladda ahaan ugu dhaqaaqnaa laakiin caqabado kale oo waxaa jira aalaaba in reerkii iyaga ay waxoodii qarsadaan xaal mastuurkii galaan dhaqaalo qaataan xataa qaarkood gabdhihii laga diro magaaladii oo baadiye loo diro taasna waxay keenaysaa in bulshada laftigeeda ay ka qayb qaadanayso ballaarinta ama maxaa la yidhahda faafinta dembiyada ummadda ka hor imanaysa khaasatan haweenka iyo gabdhaha marka haddii aabbihii uu qaato dhaqaale gabadhiisii uu xuquuqdeedii iloobo innaga kiiskaas markaan ka warqabno waa ka daba tagnaa maxay tahay talaabada qaadaan marka talaabadan qaadna waxay tahay maadaama dembi ummadda laga galay ay tahay qofkii waa soo qabanayna waana soo xiraynaa waa tahay qofka dembigaa galaa ee kufsi sameeya ama wadarha loo sameeyo ama kelinimaha loo sameeyo marka sharciga aad gacanta ku dhigtaan maxay tahay qorshaha u digan wasaaradda ama guud ahaanba puntland ee la waafajiyo qofka waa 2 shay midna waxa weeyaan dambiilihii weeyaan midna waa qofkii dhibanaha ahaa dhibanaha la talin dawo iyo daryeelid baan u samaynaa dambiilahana waan soo xirnaa oo sidii sharciga ahaa xeer ilaalintaan usoo gudbinaa kadib wixii lagu xukumo ama xabsi ha noqoto ama ha noqoto ganaax ama ha noqoto habab kale oo kala duwan ayaa la mariyaa waxaan aaminsanahay puntland waa meesha keliya oo soomaaliya 20 sano nin soomaaliyeed ku xukuntay xabsi 3 gabdhooduu kufsaday 2014 ayna dhacday arrinkaaneeto meel kale soomaaliya weli kama dhicin innaga marka way naga go-an tahay ina aanu ciqaabno qofka dembiilaha ah ama ha loo aabba yeelo ama yaan loo aabba yeelin waayo qofkaas dembiga geysanaya hal qof uma u geysanayo wuxuu fududaynayaa kana dhaadhicinayaa dembiilayaal kale inay soo baxaan isla markaasna ay ku dhiiradaan haween ama caruur yaryar oo gabdho ah taas weeyaan marka taan innaga aan ka hortagayno laakiin wixii markii ay dhacaan waxaanu samaynaa daryeelkii la talintii iyo inaan sharcigii raacno sida diinta ay qabtanaan u raacno xaal mastuur waxyaalaha ay keento waxa weeyaan haweenka dan uguma jirto xaal mastuurka xuquuqdooda in la sugana waa wax diintu ay caddaysay wax innagana waajib naga saaran weeyaan waxyaabaha aniso looga hortegi karo dhacdooyinkaas xanuunka badan waxaa ka mid ah in bulshada wacyigelin loo sameeyo muuqaalka u dambeeyey hadda baraha bulshada lasoo geliyana dadka falka geysanaya waa dad aad u da'yar markaad da'dooda aragtid qofka loo geysanaya qof laftiisu da'yar weeye marka idinkoo taa ka duulaya maxay tahay tallaabooyinka aad qaadaan si
bulshadii ama qaybta da'yarta ah loogu samayn lahaa wacyigelin buuxda oo ku aadan dhibaatooyinka arrintan ay leedahay? horta wacyigelin kala duwan baan sameynaa, ama ha noqoto mid dhalinyarada ama ha noqoto waalidiinta ama haweenka iyo odayadaba. sababtoo waxaan aaminsanahay hal meel kaliya wacyigelinta waxba kama tarayso. dhalinyaradii kaliya haddaa wacyigelisid odayadii baa u baahan, haweenkii baa u baahan in bulshadii marka qayb kasta la wacyigeliyo, laga waramo, si waadaxa looga hadlo, oo waxaan ceebta loo moodayo aysan ceeb ahayn, ay u baahan tahay muhiim. ilaa diinteenni ma dhigaysa in laysku tacdiyeeyo oo laysku xadgudbe inaan diinteenna iyo sunnaheena nabiga calayhi salaatu wasalaam aan raacno. waa waxaan horta isku wacyigelino dabcan, laakiinse iyadoo dadaalkaas uu jiro haddana dhinacyo kaleeto oo waxaan u baahannahay hadda hadduu ilaah yirahdo inaan anaguna ka abaarno. sharci ahaanse markaan fiirino, qofka hadduu 15 sano jiro uusan waalnayn, uu fayoo yahay, sharciga diinta way qabanaysaa hadduu dembi galo. waxna waxaa jira xataa qofka haddaan laga wacyigelin xumaantiisa iyo samaantiisa uu kala garan karo. tan waxay ahayd wax cad oo xumaan ah oo ula kac ahayd, ma aha wax la oran karo qof waalanaa ku dhaqmay ama qof wacyigelin la wacyigelin waayaa ku dhaqmay. wacyigelinta annaga aan aalaana samaynana 9 gobol waa gaarsiinaa, meelahaan laamiga lahayn xataa ama laamiga ka degsan waa gaarsiinaa, raadiyahan ka gaarsiinaa, raadiyayaasha qaybo kala duwanaa jira oo gaara waa u isticmaalnaa, telefishinkaan u isticmaalnaa. kuwa aan gaari karnana waaba keenaaba, xarunteenaan ku tababarnaa ama xarumaha aan ku leenahay gobolada oo dhan. waayo 9 gobolba xafiisyaan ku leenahay. iyadoo marka taas jirto, dee qofkii dembi galaya kasii maag ugu dhaqaaqaya, sharcigaan qabanaynaayo oo aan ku qabanaynaayo oo la tiigsanaynaa. khaasatanna hadda dee xeerkii kufsigaaba la soo saaroon haysanaaba oon tiigsanaynaa, oo ah mid diinta ku salaysan. waa tahay puntland waxyaalaha dhanka dowladda marka laga hadlayo aadka loogu dhaliilo waxaa ka mid a inaanay badanaa dhaafin dhulka laamiga saaran oo gaalkacyo booso inta udhexaysa ku teedsan. maxay tahay waxyaabaha aad ka qabateen dhulka laamiga ka fog oo ama dhanka waqooyiga ku yaala ama dhanka bariga fog ku yaala? maxamed, horta haddaan arbaca koombaleyda aan ka hadlayno gooni waaye, laakiin haatan dowladda ama maamulka madaxweyne cabdiweli aniga ku hor fadhiyaa tagay 9 gobol oo dhan. madaxweynahana ilaa baargaaluu tagay. waxaan u malaynayaa dadka qaarkood markaan la hadalno gardafuy waa meesha ku shishaysa, jidadka la marana ilaahaa og. madaxweynayaasha horena ma aysan tegin. alla ilaahay cadda muusaan u malaynayaa inuu tagay mar gardafuy, laakiin ilaa buuhoodle ilaa iyo dhurbo meesha la yiraahdo oo dhankaasi qandalo looga soo dhacayo waan tagay. soolna waan tagay oo dhanka waqooyiyadana. xaylaana kol dhaweyd baan tagay maraan gardafuy 2 wiig ku maqnaa. dowladeenna way aadaa gobolada, qiimeyn baan samaynaa, waan u qareennaa ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba. intaas ka sokow waxqabadka waxbarashada iyo caafimaadka way ka jiraan. caluulaa ugu shishaysa oo gabdhaha laga soo daabuli jiray, isbitaal weyn baa hadda loo dhisay. wasiirka caafimaadka laftigiisa wasiir cabdinaasiraa tagay, dhakhaatiiraa joogta. waxaa jira dad aqoon-yahano ah oo caafimaadka ku shuqul leh. waxaa kaloo jira ugu dhow caluula xaabo meesha la yiraahdo oo leh MCH weyn. baargaal sidoo kale MCH keed hadda isbitaal baa loo bedelay. waxa weeyaan meelo way jiraan u baahan in la horumariyo, laakiin health posts ku yaala. health posts kaaseeto isbitaal baa ku agyaal oo dadkii markaas lala gaari karo. dhanka waxbarashada iskuulaad baa jira, dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare ah. buuhoodle markaan tegay waxbarasho waa ay ka jirtay ilaa iyo heer agoomaha ah. caafimaadkana dhul baa hadda loo sameeyey, awal dhul ma aysan lahayn. meeshii marka aan tagno waa ka soo jawaabnaa, laakiin midda meesha taalla waxay tahay dowladda kaliya ma aha inay iyadii ay meel kasta gasho. waxaa la doonayaa dadka laftigooda deegaanka inay diyaar u yihiin in wax loo qabto, inay iyagana waxooda ku darsan karaan. fiiri, markaan ka hadalno wadamada dagaalada sokeeye ka dhaceen, wadamada burburka ka soo kabanaya, puntland waxay noqonaysaa tusaale lagu daydo. shir baan hadda ammaan ka qayb galay. soomaaliya khaasatan puntland baa example noo ahay dhaheen, sababtoo ah waa meel iyadii damcaysa inay isku tashato, haddana saasay tahay
dadkeediina rabta inay ka qayb geliso horumarkii laakiin dabcan dadkii loo shaqaynaya haddaysan qaarkood iyagu diyaar u ahayn horumarkaas ama aysan fahamsanayn dhibaatadeeday leedahay waana waxyaalaha burburka keena waana waxaan hadda ka shaqaynay inaan dadka ka dhaadhicino dowladda kaliya waxaa ka sugina idinkana wax qabsada isku tashada dhaqaalahan iyo maxay ahayd tabarucaadka laydin fidinayo weligood ma jirayaan laakiin dhaqaalaa leedihiin ka faa'iidaysta waxaadna moodaa dadka hadda inay kusoo baraarugayaan marka haddii aan kaaga jawaabo su-aashaadii ahayd dowladda waxaa lagu dhaliilaa inaysan ka degin laamiga waa ka degnaa dabcan laakiin adeegyadii inaan badinana waa jecelnaa hadda caafimaadka iyo waxbarashada ugu daran labadaasba waa laga helayaa arrimahaas ku saabsan wasaaraddaad ay qabato waxaa muhiima inaad wada shaqayna leedihiin wasaaradaha kale sida caafimaadka iyo waxbarashada si haweenka lagu helo adeegyo dheeriya oo ay u baahan yihiin ama caafimaad ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama adeegyada kale wasaaradaha kale hayaan ha noqoteen marka maxaad nooga sheegi kartaa ama nooga sheegi kartaa wada shaqaynta aad la leedihiin wasaaradaha kale ee Puntland ka dhisan wada shaqaynta aan wasaaradaha kale leenahay khaasatan caafimaadka oo kaleeto November ama bishii 11 sanadkii horeeto waxaanu ka wada shaqaynaa sidii lagu heli lahaa ambulance qalabkeeda dhan u dhan yahay oo baadiyaha tagta oo isbitaal loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka oo laga dhisay isbitaalka weyne garowe qayb ka mid ah loogu tabarucay waxaan kaloo aniga khaasatan u ahay Puntland danjiraha u fadhiya barnaamijka karma la yiraahdo ee ah naaqusinta umul raaca iyo dhimashada dhallaanka oo runtii heer badan aan ka gaarnay ama ha noqoto in dadkii lagu wacyigeliyay inay caruurtooda talaashaan ama hooyadii uurka markay leedahay say nafaqaynteeda uga qayb qaadan lahayd markay ilmaha dhasho siday iyada naas nuujintii ay ugu dadaali lahayd cunugii ilaa 2 sano inay naaska nuujiso in dawooyinkii loo sii dhiibo in dhalinyarada caafimaadka ka soo baxayso oo runtii aad u badan oo gabdhana u badan in lagu dardargeliyo internship program inta la siiyo ay ka qayb galaan si markaas meelihii baadiyaha ama laamiga ka fogaa ay uga maxay ahayd dardargeliyaan barnaamijyada caafimaadka wasaaradda caafimaadka si khaasan iskala shaqeynaa haddana waxaa jirto socota siyaasadii maxay nafaqaynta oo u baahan inaan dardargelin hadduu marka si gaar ah waa wada shaqeynaa tan waxbarashada iyadana aad baan u shaqeynaayo u wada shaqeynaa oo wax weeyaan waxay nagala qayb qaataan gabdhaha khaasatan markii wax la barayo kale gabdhaha markay ka soo baxaan jaamacadaha kaleeto sidii loogu sameyn lahaa xirfado shaqo loogu heli lahaa innaga waliba khaasatan waxaa jirta 30 gabdhood oo u fidinay master program oo hindiya ay maxay online ay ka dhiganayaan 3 gabdhood oo iyagana ay hindiya ay ku baran doonaan hadduu ilaahay yiraahdo Odisha State oo masterka rural management ay qaadanayaan iyo 3 haween oo waaweyn oo loogu talagalay solarka inay bartaan haweenkaas waa haweenka ugu horeeyay oo Soomaaliya ka baxa oo halkaas wax ku soo barta waxaana hadeerta ka shaqeynaynaa sanadkan hadduu ilaahay yiraahdo inaanu bilowno xarun solarka loogu talagalay in lagu tababaro haweenka oo noqonaysa in calashaan matooro solar ku shaqeeyo kala beerahooda ay ku waraabsanayaan nalalkii solarka kaleeto ama kuwii frinjeerada kale kii telefishinka kaleeto inay iyagu samaysan karaan shaqo abuurkay ka mid tahay dhiirigelinta haweenkay ka mid tahay haweenkuna runtii waa haween baranaya oo runtii ka faa'iideysan kara waqtigooda isla markaana u faa'iideyn kara wixii ay bartaan nafsadooda ka sokow dadkina ay u faa'iideyn karaan marka wada shaqeyn gaar aan leenahay wasaaradda cadaaladda wasaaradda iyadana dastuurka oo dhanka naga soo gasho siyaasadda kale wasaaradahoo dhan wada shaqeyn waa leenahay waxay muhiim noogu tahayna haween markii la dhaho wasaaradda horumarinta haweenka arrimaha qoyska waa nahay laakiin daladii guud baanu nahay oo eegaysa wasaaradaha kale waxyaalaha ay u qabanayaan haweenkii ama dhanka caafimaadka ha noqoto ama kobcintii waxbarashada iyo tii dadbaneed ha noqoto ama ha noqoto dhankii siyaasadii ka qayb qaadashadeeda marka qasab bay nagu tahay inaanu wada shaqeyn la lahaano si guud iyo si gaar ahaaneedba waa tahay Soomaaliya waxa ka jira system federaal Puntland federaalkaas qayb kamid ka tahay dadkana dawlad guud baa maamusha oo dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedka hoos imaanayaan wasaaradda haweenka ee Puntland wada shaqeyn intee leeg baa la leeyihiin wasaaradda heer federaal xarunta dhexe ku leh magaalada Muqdisho wada shaqeyn wanaagsan waa la leenahay wasaaradda si gaar ah waxaan uga wada shaqeynay waliba khaasatan markii loo ololeynayay gabdhaha siday siyaasadda uga qayb qaadan lahaayeen wasiir Zahra Maxamed Cali Samatar waxay noogu timid Puntland ku soo dhaweynay barnaamij baanu qabanay isdhexgalka iyo siyaasadda ka hadlaysay siday haweenka uga qayb qaadan lahaayeen iyo sidii loo kobcin lahaa
barnaamijkaas kadibna waxaan isku raacnoon u tagnay boqorkii daarood boqor burhaan halkaasaan la fariisanay oo aanu weydiisanay inuu taageero noo fidiyo si haweenkii aanu u kordhino nambarkooda kasoo qaybgeli lahaa siyaasadda wada shaqayn marka waa leenahay wanaagsan dhanka tababarada iyo aqoon isweydaarsiga oo kale ma jirta wax wada shaqayn arrinta kale leedihiin aqoon isweydaarsiga iyada laftigeeda waa leenahay oo dhowaan baa waxaa dhacday tababar aan bixinay oo aan siinaynay wasaaradda amniga wasaaradda dastuurka wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda haweenka oo maxay xubno ka socday federaalka oo ku tababareen sidii looga hortagi lahaa maxay daabulida dadka iyo ganacsiga dadka siyaasadda ku wajahnay marka wada shaqayn dhanka tababaradana waan leenahay dhinacii warbixin isdhaafsiga sidoo kalena waan leenahay wayna xiriiraan xubnayaasha kala duwan shaqaalaha labada wasaaradoodba anise aad iyo aad baan kaa mahad celinaa waraysiga khaaska ayaadna siisay waxaan rajaynaynaa insha allah inaan mar kale waraysi kale aan kula yeelan doono waa tahay daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gebagabeynaynaa waraysiga aan la yeelanay anise xaaji muumin oo ah wasiirka haweenka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland waraysigan waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed yemani intaanu mar kale dib u kulmi doonana daawadayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo